jeclaan lahaynan xisbiga kulmiye runtii guud ahaan wuxuu ku saqiiray gobolka Awdal oo runtii meesha lagu kala baxayo xisbiga kulmiye laba dhibaato ayaa isugu beertay Musabbix dhibaatada koowaad waxa weeye Musabbix taariikh xumadii hore ee Musabbix ama CV-gii Musabbix ee aad u madooba xilliyadii dagaalada sokeeye iyo ficiladii iyo hadaladii aan wanaagsaneyn ee bulshada runtii oo kaga tagay taasi maanta markuu han madaxweyne kulli muus madaxweyne noqon isma lahayn ama u tirtami doontaay kolkii tartanka muuse ku yimid waxay ahayd inuu dirto adeegayaal baabiya taariikhdiisa hore ama dadka wanaag u tusiya ama ka programka hore dadka ku dhacay runtii kama sax laakiin muuse waxa isku biirtay taariikh xumada hore iyo rakaab xumo siyaasadeed oo imika dadka u adeegaya runtii ad ka garanayso taasina waxay runtii dhabarka ka jabisay hanka siyaasiga Musabbix labada dhibaataan uu Musabbix marnaba madaxweyne dalka uga noqon kareenin waa mid taariikhda Muuse aad iyo aad u madow iyo rakaabka Muuse aad iyo aad u xun waa labada dhibaato Muuse dhabarka kaga jabay gobolka Awdal wuxuu noqon doonaa gobolka laga guuleysanayo insha Allah ta'ala xisbiga kulmiye maanta dalka wuxuu baday dib u dhac dhibaato musuqmaasuq qabyaalad aynu ilaa maanta ka soo kaban laanahay sixir barar halkii ugu sareysay buu marayaa wali kulmiye waxba kama qaban rajabeel shacabaa jira kulmiye ku bedel waxaan u aragnaa inay tahay kudka guur oo qanjow guur shacbiga ay dilootay cadaalad darrada iyo shaqo la'aanta musuqmaasuq iyo qabyaalada kala qaybinta bariga galbeed ee ay runtii keentay xukuumadda kulmiye uma aragna inay haddana xal tahay mar labaad in kulmiye la doorto waxay mudan kulmiye la bedelo shacbigana rajo cusub loo abuuro laba diblomaasi oo taariikh cad ku leh shacbiga Soomaaliland dagaaladii sokeeye aan waxba dhibaato kala hayn dadka Soomaaliland aan aanooyin iyo godob ka gelin ayaan wadnaa ma wadno madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen godob leh waxaan wadnaa madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen diblomaasiyiina oo runtii taariikh cad ku leh shacbiga Soomaaliland hagardaamiyo dhibaato aan u geysan madaxweyne godob liina runtii dalka ma maamuli karo taana taasaan runtii kale hay marka kulmiye ku bedel waxay tahay kudka guur oo qanjow guur xal la runtii shacbiga uma taana runtii taasaan kale hay waxaan jeclaan lahaa kale inaan ka hadlo oday dhaqameedka ka sheekeynay qolada kulmiye ay lahaayeen boorma joogan yaani arrintu inaga noqon baan leeyahay kudka guur oo qanjow guur Musabbix wuxuu soo diray muddo bilowda ka hor odayaal beeshiisa boorma yimaadeen kulmiye aad ugu saacabtumayeen runtii tanina taasun bay la dariiq tahay odayada qaarina xariir noqon maayaan qaarina qaar moogtahay xun noqon maayaane oday dhaqameedka horun bay runtii daba socdaan taan bayna la xeer yihiin runtii taana taasaan ka oran lahaa waxaan jeclaan lahaa oo kale inaan ka hadlo imaatinka gudoomiyaha xisbiga wadani Dr. Abdirahmaan Maxamed Cabdilaahi iyo waftiga ballaaran hogaaminaya ay usbuucan insha Allah ku soo wajahayeen magaalada Boorama marka koowaad fariin baan u dirayaa taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolada galbeedka waan leeyahay inaan kala harin yariyo weyn runtii aynu soo baxno sidii hore u soo bixi jirnay si ka badan hanaynu u quusgoyno Musabbixiga kuma may Boorama inaan kala harin maalinta ha qoosto waxa kale oo sheegaya fariin kan uga diraya barasaabka gobolka Awdal maayirka degmada Boorama taliyaha qaybta gobolka Awdal waxaan leeyahay waxay jabisay shuruucdii axsaabta siyaasadda iyo tartanka doorashooyinka khayriyada Boorama oo aan runtii ay komishanka anaga noo soo sheegin ma aqaan mala qodobada kulmiye oo sheegeen in la furayo idin furteen makarafoonadii caaganaabay fasaxdeen maalintii dhawada Musabbix yimanayay wax wal oo campaign-ku waqtiga campaign-ka la fasaxi lahaa sameeyeen waxaan u sheegayaa barasaabka gobolka Awdal waxaan u sheegayaa maayirka degmada Boorama waxaan u sheegayaa taliyaha qaybta gobolka Awdal Cabdirahmaan Cihre Boorama imanayaan khayriyada Boorama Kenya 200 oo gaari oo makarafoon saari doona bari ma sahan dambaan bilaabaya ninka hooyo dhashay ee iga hor istaagayay xafiiskayga haygu imaado tiyaad sameeyay ma sameeyaan sharcigu hadduu shaqeyn waayo shan baynu shaqeynana sharcigu hadduu kala saari waayo ninna kama xog roona sharciga way jabiseen sharci darreed ku dhaqanteen idinko dalkii xukumaya kulmiye maanta isaga dalka taliya sharciga hadduu kulmiye dhowri waayo wadani dhowri maayo sharciga kala hagaya sharciga kala saaraya sharcigii bay idin baalmarteen sida idin yeesheen baan u yeelana hadday xumeyd iyo hadday sameydba
taana taasaan ka leehay marka ku war hayaan taliyaha qaybtii barasaabkii maayirkuba khayriyada boor Cabdiraxmaan Ciro soo socda 200 gaari bari wixii ka dambeeyna kala foorna saaraya ninka hooyo dhashay ee iga xoog rooni xafiiskayga ha igu imaado